madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa aqalka madaxtooyada ku soo dhaweeyay xulka qaranka ee 17 jirada. Wariyayna Asmaa Maxamed ayaa idin faahfaahinaysa. Madaxweynaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ku soo dhaweeyay xulkeena da'yarta 17 jirada oo maanta dalka keenay koobkiisa kaafa oo ay ku guuleysteen sanadan 2022. madaxweynaha ayaa xulka qaranka iyo tababaraha ugu mahadnaqay dadaalkii ay geliyeen iyo sidii ay Soomaaliya ugu soo hayeen guushan taariikhiga ah isaga oo ku tilmaamay geesiyaal kor u qaaday sharafta iyo qarannimada Soomaaliya. dadaalan ku jirnay halgan lagu jiray ayaduna halgankii ka mid tahay Soomaaliya inay xurumdo inay magac dheer yeelato inay meesha ay xaq u leedahay oo beesha caalamka ay kaga jirto adduunyada inay ku soo noqoto mar kale istaagto shaqada dhalinyaradan ay soo qabteen oo magaca Soomaaliya ay ku soo qabteen oo magaca qarannimo ay ku soo qabteen waxay ka mid tahay soo celinta Soomaaliya lagu soo celinayo inay dib u istaagto meesha ay caalamka xaq ugu lahayd. waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin inaan ugu mahad celiyo dhalinyaradan madaxdii hogaaminaysay xiriirka kubadda iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan u soo wada garab istaagay ee si wada jir ah iskaashi ah uga soo shaqeeyay ee maanta meesha aan taagannahay hawshaa soo gaarsiiyey aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. dhalinyaro aad u da'yar oo curdana oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyay maanta inteena waaweyn iyo inta ayaga ka da'weyn oo dhalinyarada ah oo dhan soo laguma laha meeshaas inay haddana ka sii qaadaan meel ka sii weyn geeyaan. waxaa intoo kale iyo in dheeri ah ku daray oo sameeyay dhalinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maraga gacmaha argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummadan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hooseyso. dhalinyaradan meelay soo keeneen dhalinyaradan meelay keeneen tartankii dadka Soomaalida dhexdeeda ka dhaxay inta kor u qaadeen ay waxay gaarsiiyeen heer qaaradeed inay la tartamaan adduunyada inteeda kale. waxaan u baahanahay waa intaas dhaxdeena tartamada yar yarka xafiiltanka ay yaallo inaan intaan ka qaadno aan gaarsiino caalamka qaaradan joognaa berrina inaan caalamka gaano. dhalinyaradan waa da'yar yihiin maanta waxaan rabaa dadkeena maanta inta taagan maalin ma wada dhimanayna waa noola qaar ayaga ka mid ah ilaahay idankiis oo magaca Soomaaliya iyo calankaas buluuga ah haddana maalin maalmaha ka mid ah koobka adduunka ayaga u tartamaya geeyay in la arki doono ayaan aad iyo aad ugu kalsoonahay lianna hadda juhdiga ay bixiyeen oo aan huba in wax badan ay u baahnaayeen oo kaabil ahaa ay ka maqnaayeen oo meeshaan ku soo gaaray dadaal shakhsiya iyo dadaal shakhsiyaad iyo dadaal dawladooda oo tabar daran meeshaas gaarsiiyay berri ilaahay idankiis markii dawladooduna soo tabaraysato adduunyada Soomaaliyana ay dhibaatada